Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan ku guda jirnay buuggaani 48 xeer awoodda. Xeerka koowaad wuxuu qoraagu ciwaan uga dhigay weligaa ha ka hor muuqan sayidkaada qofka kaa sareeya. Dadka intooda badan waxay aaminsan yihiin in aqoon iyo karti badan la muujiyo ay keento awood, balse buugga 48 xeer awoodda wuxuu ku barayaa xaqiiqooyin qaraar. Mararka qaar caqligaaga iyo kartidaada waa inaad si xariifnimo u qarsataa. Haddii aad si cad u muujiso inaad dadka ka caqli badan tahay ama ka xirfad badan tahay, dadka kaa sareeya waxay kuu fahmayaan inaad dhaawacayso sharafkooda. Dadka intooda badan ma necba kartida dadka, balse waxay neceb yihiin in la dareensiiyo inay kaa hooseeyaan. Buuggu wuxuu soo qaadanayaa tusaalooyin. Taariikhda Faransiiska waxaa jiray wasiir la oran jiray Nicolas Fouquet xilligii boqorkii Louis XIV. Fouquet wuxuu ahaa nin karti badan oo hanti iyo saameyn leh. Markii ra'iisul wasaarihii dhintay, wuxuu u maleeyay inuu yahay qofka ugu mudan xilkaas. Si uu u muujiyo daacadnimadiisa, wuxuu qabtay xaflad aad u weyn, xitaa ka qurux badan kuwii boqorada. Qasri farshaxan hanti raaxo ayuu soo bandhigay halkii boqorku ku farxi lahaa. Boqorkii Louis XIV wuu maseeray. Boqorku wuxuu jeclaa in isaga noqdo xiddiga keliya ee muuqda, in cid kale aan laga weyneyn, in aan la dareensiin awood ka sareysa. Xafladii Fouquet waxay boqorka ku abuurtay dareen ah waxaa yimid xiddig ka iftiin badan. Natiijadii waxay noqotay Fouquet waa la xiray, waxaa lagu eedeeyay musuq. Intii ka dhiman noloshiisa xabsi ayuu ku qaatay. Qoraal lagu magacaabay Voltaire wuxuu yiri, markii xafladu bilaabatay, Fouquet cirka ayuu joogo, laakiin markii ay dhammaanaysay, sagxadda ayuu yaalay. Sababtu waxay ahayd wuxuu soo bandhigay awooddiisa. Dunida siyaasadda markii la joogo, karti kaliya kuma filna. Mararka qaar badbaado waxay ku jirtaa qarsoodiga.